maxaa ka jira wararka ku saabsan in xiriir uu dhexmaray IMK iyo sidoo kale Amiiro Qurux? Haddaba saacadihii aynu kasoo gudubnay waxaa arrinkan walaac ka muujiyey Amiiro Qurux, taasi oo iyadu kasoo muuqatay muuqaal ay iskala soo muuqdeen aadna isla mar ahaantana ay ku sharaxaysay faahfaahin ay kaga bixisay doodan baraha bulshada ku xoogeysatay, iyada oo walaac ka muujisay in fiidiyowgaasi uu ahaa mid lagu barhabaabiyey qaar ka mid ah dadka baraha bulshada isticmaalo, iyadoo qudheedu ay la fajacday hadalhaynta xoogan ee baraha bulshada dhawaanahan ka taaganeed, taasi oo ay sheegtay in ay sali raatoona lahayn oo ay yihiin arrin kuturkuteen ah, brobagandana ay ku tilmaamtay. IMK iyo sidoo kale Amiiro Qurux oo iyagu dhammaantoodba ku nool magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayay dadku isla dhexmarayeen in beherkooda uu dhacay, ugu dambeynna ay ku aqalgaleen magaaladaasi Kuala Lumpur ee dalka Malaysia. Arrintanse waxaa si aada uga dhiidhiyey isla mar ahaantana iska fogeeyey Amiiro Qurux, taasi oo sheegtay in wararkaasi aynan sugneen, sidoo kalena ay sheegtay in ay yihiin waxba kama jiraan. Dhinaca kale waxaa dadku ay isla dhexmarayeen shuux hoose oo dhawaanahanba laga dareemaya IMK iyo sidoo kale Amiiro Qurux. Sida aada la wada socotaan, muuqaalka dhawaanahan baraha bulshada qabsaday waxa uu ka turjumayay xafladda meherka IMK, kaasi oo ku beegneed muddo hadda laga jooga 2 sano, balse dhowaan xilli uu kasoo muuqday muuqaal fiidiyow ah ayuu arrinkan kaga hadlay in guur hore uu soo maray, waxaana uu tilmaamay in guur hore uu soo maray balse iminka uu yahay shaqsi madax bannaan, islamarkaana diyaar u ah in uu guursado qofka calaf uu alla ugu daro, isla mar ahaantana uu ku howlan yahay gayaan xulashadiisii iyo ciddii uu doorbidi lahaa in nolosha uu la qaybsado. Maadaama muddooyinkii ugu dambeeyey ay iska ag dhawaayeen dhalinyaradan reer Malaysia, isla mar ahaantana sida hoose wararka aynu ku helaynay iyo xogaha kala duwan ay qeexayeen in IMK iyo sidoo kale Amiiro Qurux sheekooyin kala duwan ay dhexmareen, ha yeeshee arrin hasaaba u eg oo dadku ay sheegeen. iyada qudheedu waxa ay sheegtay in waqtiga hadda la joogo uusan wax xiriira kala dhexeyn IMK, balse aysan ogeen berito calafka halka uu geyn doono iyo waxa ay noqon doonto, in ay isu soo dhowaan doonaan. dadka oo aada isugu soo dirqiya ay ku tilmaamtay in ay tahay saadaal dadku ay saadaalinayaan wax dhici doono ama wax aanu jirin oo sali raatoona lahayn. waxa ay sheegtay in labadooduba ay 2 jiha imika ay u kala jihaysteen ama 2 jiha ay iyagu kusii kala jeedaan, qofba dhankiisa noloshiisii uu ugu mashquulsan yahay gaarka ah. hase yeeshee waxa ay sheegtay inaanu calafka marnaba la celin karin haddii alla subxaanahu watacaala qadaro in labadoodu uu wax dhex maro, xidhiidh isu bedelo guur iyo jacayl, intaasi ay tahay mid aanu la xakameyn karin oo awoodda naga sareysa ah. Amiiro Qurux ayaynu ogeen in ay ahayd gabar marwe ah oo reerkeedii amaba guur hore soo martay, islamarkaana xiriirkeedii uu soo dhammaaday horaantii sanadii 2021. xilligaasi ayuu banaanka yimid khilaaf u dhexeeyay iyada iyo sidoo kale saygeedii hore, inkasta oo dhawaanahan ay sheegtay in nolosheedu heer sare ay ka taagan tahay, isla mar ahaantana gebi ahaanba xusuusihii hore ay iska ilowday. balse waxaa la warinayay warbixino kala duwan oo ku saabsan in imika ay bilowday hasaabaha dhanka nolosha, oo ay ku jirto sidii ay ku heli lahayd qof nolosheeda ay ku aamini lahayd oo calafkeeda noqon kara. haddaba maadaama baraha bulshada inta badan dhalinyarada aadka inta badan kusoo wada muuqdo, aadna la isugu xanto, intooda badan la tilmaamo in ay yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyagu xiriirkooda dadka badan ay ku tilmaamaan maal awaal iyo mid aanu higsi fog lahayn, isla markaana ujeedo weyn laga lahayn, haddana waxaa dhif naadir ah maadaama qoys burburkii bulshada Soomaaliyeed aada ugu soo badanayay tani intii social media ay dadku aada ugu soo biirayeen, noloshooda gaarkana ay ku faafinayeen. waxaa la arkaya marka xiriiro badan oo midmadow iyo kala shaki uu hareynaya, sidoo kalena khilaafka xiriirada
kala duwan laga arkaya uu kor u kacaya. Haddaba marka aynu usoo laabano arrintan dhawaanahan baraha bulshada dadku ay iskula dhex marayeen waxoogaa haddii aynu ka rinaahno, haddaba IMK iyo sidoo kale Amiir Qurux waxay iyagu markaasi isku arkeen goob xaflad ah. hase yeeshee dadku waxa ay si gaara toosh ugu ifiyeen marka dareeska ay wada xidhnaayeen ay aada isu shabahayeen sida laba qof oo lamaanoo kale. arrintaasi oo ay sheegtay Amiir Qurux inay ahayd lama filaan maadaama aysan ogeyn sida ay ku dhacday arrinkaasi, balse labadooduba qof walba geestiisa uu isugu diyaariyay xafladaasi. dareeska iyo labiska ay xidhnaayeenna aynan ogeyn waxa uu noqon karayo goobta marka la wada yimaaday. ay markaasi taasi noqotay mid fajacyal ama kaag iyo la yaab noqoto. dad badanna waxa ayba sawirkaasi geliyeen baraha bulshada iyagoo siyaabo kala duwan durbowa u camiray warar iyo sidoo kale xan la xiriirta in wax un uu ka dhaxeyn karo labadani shaqsi. Amiir Qurux ayaase waxa ay sheegtay in waqti xaadirkan aysan jirin qof xidhiidh ama hasaabo uu kala dhexeeyo oo ay madax bannaan tahay. imikana dadka ku dirqinaya IMK in ay yihiin dad wax magarata ah, intooda badanna ay sheegtay in ay yihiin dad doonayo in ay bilaabaan doodaan jirin, balse waxa ay dhanka kale laabqaboojin ugu sameysay qaar ka mid ah dadka riyooyinka noocan oo kale ku jira in ay suurtagal noqon karayso, balse waxa ay dhanka kale sheegtay in suurtagal ay tahay in labadooduba laba jiha ay kala marayaan maadaama qof weliba dhankiisa uu ku jiro wadadii iyo wadiiqadii nafsadiisa uu ku maareyn lahaa. iyada oo dhinaca kalena ay kordhayaan baraha bulshada waxyaabaha ay aada isugula dhex maraan run iyo beenba ku doonaba ha noqdee, waxaa dhinaca kale aada u badan bunbuuninta dabagalka lagu hayo lamaanaha Soomaaliyeed iyo da-yarta siba kuwooda caanka ka ah baraha bulshada ee magaca iyo maamuuska ku leh, kuwaasi oo had iyo jeer isu arka in ay aada markaasi loogu hadalhayo social media, gaar ahaana TikTok-ga oo ah aalad dad badan ay aada ugu xidhan yihiin. sidoo kalena muddooyinkii ugu dambeeyay Soomaalidu ay hayeen kuwo halkaasi iskula dhex maraya muuqaalo kala duwan oo ay iyagu ka sameynayeen qaar ka mid ah da-yarta bulshooyinka baraha bulshada caanka ka aan iraahday. inta ayaa muuqaalkayga kusoo gabagabeynaya. subscribe inoo saar janalkan haddii ay tahay markaa koobaad kusoo biirtay, like garee muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada. waxaan rajeynayaa in muuqaalkan xaqiisa aada siin doonto oo like inoo saari doonto, sida aan u rajeynayo in muuqaalkan aada u dhammaysan doonto.